madaxda waxaan dhihi karaa madaxda samawadal oo tageen huluuqo ayada dhexdood sidoo ayaka wax sameeyay camal soo ayaka yani ayaka polada bixinayn ayaka like bixinayn bedelkii dadkii ilmaha dilay cidii mise dadkii ilmaha dilay bedelkii huluuqo ayaka si u soo socdaan imaan lahaayeen ayakoo israacsan oo dhihi lahayn raali Cabdallah raali noqda mise Samwadal raali noqda waana kana maanta waan imaan huluuqo oo naga khalad baan galnay de magna naga qaata raali noqda dadkii ilmihiina dilana waan ii keenayna dad Samwadal dhaxdiis apologies bixina adu waxaas ma aragteen bedelkii madaxda Samwadal intay dadka huluuqo u yeeraan ee fariisiyaan ee dadka kale dawladda Kenya u hanjabi lahaayeen ee dhihi lahaayeen waa ilaa keentin qofkii ilmahan dilay bedelkii rar huluuqo u hiilin lahaayeen ee dhihi lahaayeen haye waana kana maxaa rabtiin kalaya aan iska celinne bedelkii dhihi lahaayeen ayaka apology bixinayo warniyo ani walaalkiisu apology ani isiinaya adi wax ma yeelin ani Bishar Ibrahim Abbas muxuu yeel ma milishiyaan mulay Bishar Ibrahim Abbas ma Safiya ma milishiya leedahay madaxda Samwadal waxaan weydiinayaa oo maanta waftiga ay tageen huluuqo idinka ma milishiya leh marka apology ka bixinaysiin oo meesha fadhidiin oo dadkii shacabka ay leedihiin am peace qata idinka meesha ma degantiin ma guryaha ku leedihiin ma dhulkaas aad degantiin no aan isweydino I don't understand bedelkii dhulka isku garangarin lahaayeen maanta Safiya iyo Bishar iyo Abdul iyo Sheekho iyo kulligood intay isgarangariyaan ay dhahaan ambay ay dhahaan wax yani hana ceebeenin leeyin hana ceebeenina maxaa ceeb ilmaha dhinteen 6 wiil baa la dilay maxaa ceeb jirto maxaa ceeb kala jirto war walaalayaalow isaxa haddaan khaldan yahay Samwadalow ina Yuusuf Xaaji waa kane ma waalniye nin aqoonyana waan ahay nin wax bartan waan ahay bal dhaqanka Soomaaliyeed siduu u shaqeeyaa dad laba cid markay isdagaasho what is the process peace maxaa loo maraa dadkan siyaasiyiinta maanta meesha tageen markay kursiyaha wada rabeen cidahooda way soo mareen sidii saxda dhaqanka way soo mareen middan hadda wiilasha la dilay maxay u soo marin waayeen kuumade suu wax uga bilaamana kuumade sidee wax loogu geena kuumade walaalayaalow haddaan khaldan yahay saxa correct me if I am wrong am I wrong am I wrong sida Ruto aan lips u qaninaya ma aragtin Ruto markuu xanaaqo taanu dhahan sabeen markii lagu qabto Ruto markii been lagu qabto saan ruuqa qanina mogta saanu dhahan Samwadalow bal isaxa ma khaldan isoo waca hadhow iga dhaadhiciya bal how do you apologize on behalf of someone who is an aggressor bedelkii adhiilad fiiri maalin hore jalwaa guryaha lagu qaraacay
جلو maxay sameeyeen baarlamaanka jalwadii way soo baxeen dadku madaxdoodii hataa yani dhiiga kacay dadkooda first priority-gaada markii dadkaada lagaa dilo mise dadkaada xanuunsanayiin mise dadkaada khalad laga geliyo adee madax markaa tahay waxaa la rabaa dadkaada horta inaad la xanuunsatid bil dhan inaad la xanuunsatid oo qofna la hadlin oo telefonaha hataa dad kale la hadlin dadkaada dhex fadhidid dadkaada inaan waa ka maqneed ilmaa la dilay waa maqneed waad xabaashay waa noqotay laguma maqlin hadalka ma dhihin intaa meel fariisid hadda maalin hore video aan soo galiye beesha garra oo Mandera wiilkooda lagu dilo Muqdisho say u hadleen waa arkaysan videoga YouTube ku jira orda fiiriya beesha garada way galaan gaashadeen kuligood kii la doortay kii business ka lahaa kii community ka lahaa wax kasto inta iskugu imaadeen wiilkooda Muqdisho lagu dilay ee u direen baaq madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud